Falastiin waxay ka tirsan tahay dhulka loo yaqaano Bilaad Shaam. Bilaad Shaamna waxay ka kooban tahay afar dal. Afarta dal ee ay Bilaad Shaam ka kooban tahay dhammaantood waa muslimiin, waxaana kala yihiin Suuriya, Lubnaan, Jordan iyo Falastiin. Haddaba Falastiin waagii hore waxaa degi jiray dad Falastiiniyiin ah ayaa degi jiray. Waxaa la degi jiray Kiristan iyo Yuhuud aad u tiro yar oo lagu qiyaasi jiray inay ahaayeen boqolkiiba 3. haddaba qarnigii 19aad waxaa dhacday mushkilad aad iyo aad u weyn kadib markii ay Yuhuud fara badani ay ka soo qaxeen daafaha adduunka una soo qaxeen wadankii Falastiin. isla markaana Falastiin waxaa niyad jab weyn ku noqotay Yuhuudda oo soo buux dhaafisay dhulkii ay degi jireen ee Falastiin. Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa waxay go'aan ku gaadheen inay dhulka Falastiin ay Yuhuudda ay siiyaan oo ay ka dhigtaan meel ay degaan. Falastiin markay aragtay in dhulkoodii lagu haysto waxay isu diyaar gareeyeen in ay dagaal ku qaadaan Yuhuudda dhulkooda ku soo qaxday ee tirada badan leh. kadibna go'aan ayay gaadheen, go'aankaas oo ahaa inay ka gargaar dalbaan dowladdii Cismaaniyiinta ee waqtigaasi ka jiraysay wadankii Turkiya. sanadkuna wuxuu ahaa sanadkii 1891. hase yeeshee dowladdii Cismaaniyiintu waxba kamay qaban, waayo waxay ku soo beegantay markii ay daciifaysay dowladdii Cismaaniyiintu oo ahayd dagaalkii labaad ee adduunka dhammaadkiisii. kadib markii la arkay inay gargaar ka waayeen dowladdii Cismaaniyiinta, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa waxay ku heshiiyeen inay dhulka Falastiin ay leedahay ay kala qaybsadaan. Ingiriisku wuxuu la wareegay dhul fara badan oo ka mid ah dhulka Falastiin, isaga oo taana sabab uga dhigay inuu heshiis la galay Belfort oo ahaa inuu gogol xaadh u sameeyo dadka Yuhuudda ee ku soo qaxaya wadankaasi Falastiin. heshiiskaasina wuxuu dhacay sanadkii 1917. haddaba Ingiriisku markii arrintaas sameeyay waxa uu sacabatumay oo ku taageeray wadanka Mareykanka ayaa ku taageeray arrintaas. kadib halkaa Yuhuuddu waxay ka heshay fursad aad iyo aad u qaali ah. markay aragtay inay quwado waaweyn ay taageerayaan, waxay dhacday inay soo bataan Yuhuuddi meesha imanaysay, waayo quwadaha ayay isku haleynayaan. waxaanay degeen magaalada Tel Aviv ayay ka dhigteen qaacido iyo meel ay degaan, iyagoo weliba dalbayay dal kororsi in loo sameeyo ay Falastiin badankeeda ay la wareegaan. Falastiin ansayday ay ka soo horjeesatay heshiiskii Ingiriiska iyo Faransiisku ay wada galeen, kaasoo ahaa in dhulka Falastiin la wareegi doono. kadib Falastiin waxay isu diyaar gareeyeen inay shiraan ayagoo ka tashanaya waxay ka yeeli lahaayeen arrimahan ku soo kordhay wadankoodii Falastiin. halkaa kadib waxaa ka bilaabmay kacdoonkii ay Falastiin ay la dagaalamaysay dadkaasi Yuhuudda ee wadankooda raba inay xaqdarro ku qaataan. dagaal fara badan kadib Falastiiniyiinta barta waxaa kaga shahiiday 157 ayaa kaga shahiiday, halka Yuhuuddana ay kaga dhinteen 46 qof. taa kadib Falastiin haddana waxay isu diyaar gareysay shir aad iyo aad u ballaaran oo isugu wada yimaadeen, kaasoo ay ku gorfeeyeen in ay doortaan qof hogaamiya. shirkana waxay ku qabsadeen Nablus. shirkana waxaa cunaqabatayn lagu saarayay dadka Yuhuudda oo dalbaysay in dhulka Falastiin iyaga la iska siiyo ay sidaana ku qaataan. waxaana la aasaasay golo Islaamiya oo hoggaan looga dhigay Haji Amin al-Husayni. Yuhuudduna waxay aasaaseen ciidan difaac oo aad iyo aad u xoog badan ayay aasaaseen, waxaana hubka ku caawinayay oo si hagar la'aan u siinayay Ingiriiska, iyadoo Falastiinna laga mamnuucay in hub qaataan amba ay dibadda ula soo baxaan. waxaana lagu hanjibay in hubkooda ay guryaha ku haystaan. iyadoo haddaba arrintu ay halkaa marayso ayaa waxaa la dilay sheekhi weynaa ee Ciisidiin al-Qassaan, waxaana uu ku jiray xarbigii Yacbad ayaa uu ku jiray waqtigaasi, amaba dagaalkii la magac baxay Yacbad. kadib halkaas waxaa ka dhacay dagaal foolka foola oo la iskaga horyimi oo la isu aabayeelaynin. halkaana Falastiin waxaa kaga shahiiday 116 qof ayaa kaga shahiiday. Yuhuuddana halkaa waxaa kaga dhintay 133 qof ayaa kaga dhintay. arrintu haddaba markay halkaa marayso ayaa haddana Falastiin waxaa ku soo qaxay dad milyan ku dhow oo ah Yuhuud. waagaas ayay Falastiin noqotay xarun dagaal oo lagu dagaalamo. waxaa la galay 6 bilood oo dagaal ah oo aan kala go'ayn.
kadib sanadkii 1937 waxay ka qaxeen dhulkii la siiyey yuhuudda ay falastiiniyiintu ay ka soo qaxeen. intaa kadib ingiriisku waxa uu aasaasay guddi la magac baxday biil, waxaana la go'aamiyey in la kala qaybiyo dhulka Falastiin. qayb ahaanna yuhuudda la siiyo, qaybta soo hadhayna la siiyo carabta. ingiriiskuna qayb ka mid ah ayuu haystaa. waxaa isku magacaabay inuu maamul uu ka noqdo oo uu iska yeesho magaalada barakaysan ee Qudus la yidhaahdo. waxaa arrintaasi mar kale ku gacan saydhay Falastiin. sanadkii 1939 waxa uu ingiriisku aasaasay heshiiskii la baxay warqaddii caddayd oo ku qornayd inay yuhuuddu helaan dhul ay xaq u leeyihiin oo ah dhulka ay Falastiin ay degaan. waxay yidhaahdeen arrintaasi waxay nagu qaadanaysaa 5 sano inaynu ka safayno ee Falastiiniyiinta dhulkooda, inaynu dhulkooda sidaa kula wareegno. waxay yidhaahdeen waxay qaadanaysaa muddo 5 sano ah. yuhuuddu waxay bilowday inay si badheedha u dilaan qof kasta oo Falastiiniya oo ka soo horjeesta awaamirta ay bixinayaan, iyadoo ay bilaabantay in la gumaysto dadkii Falastiiniyiinta ahaa ee waddankaasi iska lahaa ee deganaa. haddaba falalkii ugu xumaa ee yuhuuddu geysatay waxaa ka mid ahaa qaraxii weynaa ee ka dhacay hoteelkii boqorkii weynaa ee Daa'uud. magaalada Qudus ayuu ku yaalay hoteelkaas weyn. ninka hoteelka iska lehna wuxuu ahaa nin weyn oo la ixtiraamo oo laga dambeeyo. kadib yuhuuddu waxay sii bilaabeen in ay dhaqankii ay xumaa ay ku socdaan oo dad nool ay ku gowracaan dhulka Falastiin meelo ka mid ah, gaar ahaan meesha la yidhaahdo Dayru Ayaasiin. sanadkii 1947 ingiriisku wuxuu gaadhay go'aankaasoo ahaa inuu iskaga baxo waddanka Falastiin. haddana mar labaad waxaa soo cusboonaaday dagaal u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo yuhuudda. kadib yuhuuddu waxay qabsatay dhulkii Falastiin. boqolkiiba 87 ayay qabsatay dhulkii Falastiin. boqolkiiba 22na waxay u soo hadheen dadkii ahaa Falastiiniyiinta. isla markiinaba Maraykanku waxa uu ictiraaf siiyey yuhuuddi meesha joogtay. sidaasayna yuhuuddu ay kaga mid noqdeen qaramada midoobay ayay sidaas ku noqdeen.